يقان أسرع لهاي عيدان عيدي لا شني برشدا الله ينستان عبقارو لغو يقان برشدا الله ينستان عبقارو لغو يقان أدميغا وي أدميغا وي قولي دتا أدميغا وي قولي دتا gaar ahaan insha Allah waxaan ku soo runtii aad u soo dhaweynayaa xisbiga wadani oo markaa madaxda ugu sareysay marayaan runtii waxaan leenahay soo dhawaada qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhawaada deegaanka anigoo ka mid ah odayaasha deegaanka iyo culimada deegaanka aad baan idin soo dhaweynaynaa musharaxa madaxweyne iyo gudoomiyaha xisbiga aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan leenahay qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhawaada jasaakumullahu khayran jazaa waanu soo dhaweynaynaa xusbiga waxaanu leenahay ku soo dhawaada magaaladiinnii dadkiinnii dalkiinnii ku soo dhawaada waa dadkiinnii dadkanu waa aragtaan waa si fiican bay idiin soo dhoweeyeen ilaahay ha barakeeye waa tubnaa ilaa maanta oo xusbi horena waa soo maray markii kii hore ka tegayna maanta waa dariiqay tubnaayeen si fiican baan idiin soo dhowaynaynaa aad iyo aad yaanu idiin soo dhowaynaynaa waa dadkiinnii waxaan ku dhaafayaa dee haddeer olole ma jiro waxayla tahay idinkuna waxaa u socoteen kaadh qaadashada wacyigelinteedii annakuna intaasun baanu ku hadlaynay maalmahanba qofkii kaadhkaa qaataa wuxuu haystaa qofkuu jecel yahay wuxuu xogu rido qofku necab yahayna wuxuu ku rido laakiin haddaad qaadan weydo wax kale dee gacmaha laysula iman maayo maanta magaaladeennuna aad iyo aad bay kaadhka ugu liidataa siday u qaadanayso waxaa laydiin socdaa in laydin wacyigeliyo kaadhkaa inaad qaadataan kaadhkiina waa halkaa idin yaalla hortiinna kaa waxaan idin farayaa inaad qaataan si aad hadhowta ninkaad diinaysaan ugu reebtaan kaad doonaysaan nagula sabxaan reer quruuntaasaan leeyahay waxaan leeyahay madaxdan inoo timiya xusbiga wadaniya kala hoosaysa kala sarraysa hal erey baan leeyahay waar waxaanu joognaa meel la yidhahdo bari qaawane ma soo gaadho dawladda iyo waxqabadkeedu aad iyo aadna waan idinla shaqaynaynaa maskaxda iyo laabta waa idinkala jiraa gacmaha iyagu waa idinla jiraan aad iyo aad baan idin salaamaya xilligaa gaaban assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu war maanta dantiinna ka shaqeeya dantiinna oo qofaan dan inoo hayn dan aan idiin hayn waa inaad ka tashataan xusbigaas waa xusbi ballaadhan oo la wada leeyahay oo laga siban yahay oo aan qabyaalad ku midaysnayn 85 marka xaaladda SNMtu ay waqooyiga ka gilgilato 3 nin baa la soo diri jiray jaamac gaas macaawiye ismaaciil axmed ismaaciil iyo laxwas ninka la yidhaahdo nin ballidhiig buu soo fadhiisan jiray dadweynu ahaa ninna duruuqsi buu iman jiray oo ismaaciil axmed ismaaciil buu ahaa ninna laxwas buu ahaa uu iman jiray sheekh war mayaanay maanta 84 u ekayn 84 maanta mayaanay u ekayn yaa bismillaahi raxmaani raxiim dadweynaha magaalada qorolugud aad iyo aad baa u mahadsantiin waanu idinka raagnay goor dambaanu nimi waxaan idinka mahadnaqaynaa soo dhowayntiinna qiimaha leh waxaynu u soconnay horta marka hore ujeeddadu waxa weeye inaad isdiiwaangelisaan isdiiwaangeliya kaambeynka iyo wixii kale haddii alla idhaho waynu isu soo noqon doonnaa markaynu kaadhka qaadanno waa inoo waddani waanaynu isku soo noqon doonnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanu u soconnay maanta diiwaangelinta sidii la sheegay diiwaangelinta iyo kaadhka in la qaato wacyigelinteeda iyo dhiirigelinteeda iyo kormeerkeeda iyo ukuurgalkeeda marka kaadhka ha la qaato kaadhka ha la qaato ha loo howlgalo wixii halkan looga baahan yahay meelo badan baanu oolo wixii halkan nasiib wanaag hadduu yaalle wixii looga baahan yahay insha allahu tacaala ha la sameeyo hadday tahay kuwii yaryaraa kuwii markii hore aan kaadhka qaadan kuwa ka lumay dhammaantood insha allahu tacaala ha loo diyaargaroobo dhammaan shacbiga degmada qorolugud waa salaamaya waana idiin mahadnaqaynaa goor gaban baanu idiin nime ka raalli noqda
muuqaalka wanaagsan iyo shucuurta idinka muuqataa baanu idinka mahadnaqaynaa waxaanu u nimi inaanu idinkala qayb qaadanno wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha markaa fariinta koowaadaanu idiin sidna waxa weeye ha la isdiiwaangeliyo muwaadin kasta xaq u leh inuu isdiiwaangeliyaa waxaanu ka codsanaynaa u soo jeedinaynaa inuu isdiiwaangeliyo dadka deegaankana waxaanu ka codsanaynaa inay wacyigelinta badiyaan oo halkan deegaanka somalilan iyo deegaanada dalkan aynu jaarka nahay dadkeennii baa jooga labadaba marka ha laga hawlgalo waxaan ku soo guulaanadayaa diiwaangelintana ha lagu dadaalo shacbiga somalilandna maanta waa isbedel doon qurulugudna dee waa ka tirsan tahay shacbiga somalilan waa soo dhaweynaynaa anigoo reer balacale ilaa maanta halkan heega nagu jirnay dadkii ay kala caraabeen haddeer oo dadku intana ilaa maanta ay ka badnaayeen waa soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaadba halkan dee magaalada balacale waxaa ka jirta diiwaangelintii waqtigii diiwaangelinta ayaa lagu jiraa halkan sanduuq ma yaallo oo dadku waxaan ugu raraynay waxaan u helaynay degmada Qorlugud oo goobta sanduuqa yaala noogu dhow waxaanu halkaa dadka aan u helaynay markaa waxaanu u baahannahay haddaan nahay dadweynaha reer Balacale ee u baahan diiwaangelinta inay kaarka qaataan deegaanku uu u taagan yahay diiwaangelinta ha u taagnaadee wax sanduuqa lama dhigin degmooyinkaa la dhigay sidaa ay kuwa ka warramayay ummaddu waxay ku jirtaa daabul inaad ka qayb qaadataan oo ka qayb qaadanana waa mid loo baahan yahay sidii kuwii horeba ay ahaayeen waxaan ku soo gabagabeynayaa saddexaad dheer baa soo gasheen markaan deegaankan ka warbixiyo deegaankan waa ka arkaysaan ummadda heelkaa tumani saacadda tumantaa waa ninka arkaya intaa afarteed iyo shanteed mid ka badan ayaa joogtay ummaddaasna waxay u taagan tahay oo xilligaa u taagan tahay sidii ay mar labaad xaalad nabadgelyo ku jirta mustaqbalkeeda mar labaad xukuumad cusub ay dooran lahayd waxaan ku soo gabagabeynayaa gudoomiyayaal iyo mudaraxyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waanu idin karaamaynaynaa guul iyo farxad baan idin soo dhaweynaynaa waftida loo timo ee gudoomiyaha musharaxa xisbiga wadani iyo gudoomiyihiisa iyo kaalmaha la socda iyo howlwaanada ee wada mudan ee xisbiga wada ah ee jiraasha dheer soo maray ee caawaanaga lagu dambeeyey waa idin soo dhaweynaa waa idin salaamaynaa salaamta islaamka waana idin soo dhaweynayna waxaa nagu ogaataan oo dhago kan iyo laaba inaanu aad si qorta dheer annagoo xusbiga ah annagoo idinka filanayna mustaqbalka waxsan oo lagu nagaado oo lagu farxo inaa ugu noqotiin ummadda reer Soomaaliya iyo dalka Balacale aad iyo aad baanu idiin soo dhaweynaynaa deegaanka waxa weeye waa ogtihiin sanduuqii diiwaangelinta ma yaallo goobo ay Qorlugud ugu dhowdahay ayaanu u doonanaa hawl badan baa nagaga dhacda dibjir yaa nagaga dhacda in looba hoydo habeenkaasaa dhici karta dadkii la qaaday hawl iyo qarash fara badan baa nagaga dhaca waxaanu doonaynaa inaad taana xilkeeda aad iyo aad loogu dadaashaan karaankiina oo waxaad nagaga taageeraysaan deegaan ahaan nagaga taageertaan aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan reer Balacale shacabka Balacale soo dhaweeyo u salaamayaa idinka mahadcelinaya soo dhaweynta waqti aad u dambeeya ilaa saaka sidii waagu bayaan soconaynay waliba 7 cisheed diiwaangelintu bilaabantay maana fariisan marka reer Balacale aad iyo aad baa mahadsantihiin waqti badan baynu wada qaadan lahayd waqtigan inoo saamaxayn iyo duruufta imika habeenka aynu joogno ayaan inoo saamaxaynin waxaanu socodkeedu ahaa wacyigelinta diiwaangelinta waanu ka xunnahay inaan diiwaangelintii sanduuq halka la keenin
waana idinka wargeynaynaa waxaan isku dayi doonaa in la keeno sanaaduuqdan ayaamahan hore markay dhammaadaan sidii ay markii hore noo ballan qaadeen commissionku in la qaadi doono hadday suurtagal noqoto taa waa tijaabinaynaa insha allahu tacaala wixii kale laydinka caawin karana waan isku dayi doonaa insha allahu tacaala laakiinse shayga muhiimka waxa weeye abaabulka iyo isdiyaargarowga inay isdiiwaan gelisaan diiwaangelintu aad iyo aad bay muhiim u tahay qof walba codka uu bixiyo oo uu marka horena kaarkii diyaarsada waa muhiima qofka muwaadinkaahi xuquuqdiisa muwaadinnimo iyo fursadda uu wax ku bedeli karo ee uu kula xisaabtami karo madaxdiisa ee kuu doono ku dooran karo waa fursaddan maanta oo kale waa inaad kaarka qaadato waa inaad u diyaargarowdo sidii aad isbeddelka u samayn lahayd dhammaan shacbiga magaalada Balacawle waan salaamayaa waana idin mahadnaqayaa sida mugga iyo miisaanka leh ee shirka noogu qabateen inkastoo aanu gabaadhac idiin nimi waan idin mahadnaqaynaa muuqaalka iyo soo dhoweynta iyo shucuurta idinka muuqata waan idinka mahadnaqaynaa waxaan u soconnay uun fariinta inaanu idinkala qayb qaadano wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha marka si uu muwaadiniintu u helaan dhammaantood xuquuqdooda ah in iyaga la doorto ama ay wax doortaan waxaa waajiba in muwaadinku uu isdiiwaangeliyo oo qaato kaarka codbixinta marka taa inaad ku dadaashaan waanu ka xunnahay magaalada intan leeg ee miisaanka leh inaanay suurtogelin in la keeno sanduuqii hase yeeshee guud ahaanba somaliland waa la yareeyey sanaaduuqdii waxaa laga yaabaa dalka somaliland ee baaxaddiisa ogtihiin 170 sanduuq baa la dhigay marka taasa kaliftay in dadkii dhibaatooda marka insha allahu waa dee qorshahaas in lagu noqdo sanadada dambe way noqonaysa waa bilkhasab laakiin imika inaynu dadaalo dee meesha ay yaalin loogu tago oo dadku ugu tagaan baa iyaguna muhiima taa dadku ha ku dadaalo deegaanka ha ku dadaalo insha allahu sanaaduuqda in la dhaqaajiyo oo dee meelaha dadku ku nool yahay la gaarsiiyo muddada bisha oo weysana waan ka shaqayn doonaa haddii la yidhaahdo waxaynu soo dhoweynay wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo musharaxa madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan cabdilaahi ciro iyo gudoomiyaha xisbiga xirsi cali xaaji xasan qasdiga iyo socodkoodu wuxuu daaran yahay in la qaato kaadhka codbixinta in la qaato ayuu daaran yahay oo socodkoodu daaran yahay intaa markaan ka gudbo waanu idin soo dhawaynaynaa deegaanka Shashcadda waxaanu idinku soo dhawaynaynaa si sharaf leh waxa weeyaan halkan waxa jooga taageerayaasha ugu ballaaran Balliweyn ayaa jooga xisbiga wadani waana meeshii Balliweyn oo dhan codka ugu badan uu ka helay xisbiga wadani marka waxa weeyaan maalinta fartu timaado farta idinka iskale waxaan soo dhawaynayaa qalbi furan gacmo furan niyad wanaag ku soo dhawaynayaa xisbiga wadani ee caawa ku martida ah magaalada Shashcadde oo hogaaminayo musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan iyo wafdiga ballaaran ee kale ee la socota waxaan leeyahay soo dhawaada kaarka ayaa laga hadlayaa caawa qofuuna waxba ma tiri kartid haddaanad kaar haysan taasi waa qodob kaarka kii haysta ha ilaaliyo kii isdiiwaan geliyana ha diyaargaroobo waxa weeyaan kaarku wuxuu wax u taraa dalka wuxuu wax u tarayaa tirada dalka wuxuu wax u tarayaa tirada gobolka wuxuu wax u tarayaa tirada deegaamada sida Shashcadde tuulooyinka iyo magaalooyinka inala mid ayaynu kula tartamaynaa kaarka qof walowba kaarkaagii ha la helo
oo kaarka kii aan qaadano kaarka qaado intaas waa intaa waxaana muhiima dadku tiro degmo markuu doonayo wuxuu ku xisaabtamaya waa tiro magaalooyinka tartan bay ku jiraan dadka inta ka codeeyey iyo inta kaar qaadatay ayaa wax lagu siinayaa oo ay degmo ku noqdaan oo wax ku goostaan reer shacabka waxaan aad ugu dhiirigelinayaa inay kaarka qaataan oo aan kaarkaasi ka dayacmin maanta oo si buuxda u qaataan oo ay ugu codeeyaan mustaqbalkooda berri maalmaha dhow insha allah billahi kariim cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi aan la seegin codka laakiin maanta codka ma aha kaarka u diyaar garooba kaarka qaata hal kaariyo ka maqnaaneen maanta degmada magaalada soo socodee intaasaan idinku baraarujinayaa aniga oo salaamaya madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo guddoomiyaha xisbiga rajada shacabka xirsi cali xaaji xasan iyo dhammaan xubnaha kale ee wafdida la socday miiqaam kasta ay leeyihiin iyo magac kasta ay leeyihiin salaanka bacdi kolley annagu xalay toole waxaanu ka soo baxnay magaalada burco ujeedkaan u soo baxnay amaan halkan u soo qabanayna waxay ahayd soo dhoweynta wafdida ka u socotay somalilan oo dhammaanteed socotay ee u socotay baraarujinta ama wacyigelinta kaarhka qaadashada kaarhka annaguna taasaan u soconnay waxaan horta reer shacabka u sheegaya dhammaantoodba inay kaarhka qaataan aanay kaarhku yahay ujeedka magaalada ama hadafka intay leegtahay magaaladu ama awooddeedu tahay in la ogaado codka aad leedahay ama kaarhka aad leedahay ayaad magaalooyinka kale kaga goosan kartaa ama kula tartami kartaa horta kaarhka aan inaan qaadanno ayaan ku boorinaya reer shacabde dhammaan shacabka reer shacabde waa mahadsantihiin aad iyo aad waa mahadsantihiin noo soo dhaweyseen wakhtiga amintana ay taagnaydeen annaguna runtii safar dheer baanu soo galay ilaa iyo caawan islayn burco ku hoyo guuro ku tagana waanu sii soconaynaa saasaan hadallada usoo gaagaabinaynaa mahadnaq dabadeed sidaa la sheegay wuxuu ahaa socodka iyagu inaannu dhiirigelinno oo wacyigelinno kaar qaadashada diiwaangelinta marka arrintaasaan u soconnay muhiimadda koowaad lahayd marka hadalka saasaanu usoo ururinaynaa waxaanu doonaynaa in kaarhaka la qaato laga howlgalo waa ka xunahay runtii degmadan oo dad ballaadhan oo shacbiyad badan ay ku nool yihiin inaan la keenin sanduuq waana ka wargeynaynaa haddaa la ka dhigo komishiga oo kala hadlaynaa waxaa jirtay ballanqaad inay nooga ballan qaadeen in meelaha aan la geynin aan sanaaduuqda la geyn in sanduuqa ugu dhow lasoo dhaqaajiyo la keeno markuu maalmo yaallo 7 cisho meel la geeyo maadaama bil hoolayo marka yacni fulaacada hore ay ka dhacdo ee dibradu ka dhacdo ee magaalada la dhigay yacni dadka jooga la diiwaan geliyo inuu magaalada ku xigta tago waxaa muuqatay inaanu weli arrintaasu dhaqaaqin arrintaa insha allahu tacaala bal falowgeed baynu qabaynaa waxaa lagaga hawl yaraysanayaa in dadka la guro haddii arrintaasu suurto gasho laakiinse suurtagalnimadeeda waa hubinaynaa waa insha allahu tacaala socodkaygan burcaanu ku samayno waa ka mid waxyaalaha noo qorshaysan inaynu ka hadalno idinkana dhammaantiin waa mahadsantihiin wixii awoodi tira haddii aan idinka caawin karana waxba idinka akran mayno ujeeddadan maanta u nimi ololo may ahayn waxay ahayd inaannu idinkala qayb galno wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha waa sheegteen in dadka dee abaari jirtay oo dad badan ka guuray hase yeeshee duruufo adag inaydin haystaan oo sanaaduuqdii idinka fog tahay sidaa guddoomiyuu sheegay wixii aanu qaban karno waanu idinla qaban doonnaa insha allahu waanu idin mahadnaqaynaa waxaynu ku dadaashaanuun in dadaalka aada ugu dadaashaan in marka hore qofka la wacyigeliyo kadibna dee uu ka qayb qaato inuu isdiiwaangeliyo waanu idin mahadnaqaynaa mar kale asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waftigan uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga wadani iyo musharaxa madaxweynaha mustaqbalka ciro waxa aan iyo madaxda kale ee xisbiga ee halkan maraysa waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
madaxweyne ayaa halkan wax fadhiya waraga ilmo mara xisbiga aad iyo aad baanu idiin soo dhawaynaynaa aad iyo aad baanu idinku faraxsannahay inaynu is aragno oo aad degmada booqasho ku timaadaan dhinaca midig iyo dhinaca bidixba waa idinka taagannahay waa idin taageersannahay aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay socodkiinan iyo kuurgalkiinan kulley sida loo qaadanayo kaadharka iyo dardaarankaasuun baa u socotaan maanta maalin kaambeen maaha maalin waxa weeyaan hadal kala yaalana ma aha ku soo dhawaada degmada Warraan halkan waxaan caawi ku soo dhaweynaynaa degmada Warraan waftiga uu hogaaminayo musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo gudoomiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaan ku soo dhawaada degmada qalbi furan baan ku soo dhaweynaynaa degmada ku soo dhawaada baan idin leenahay waxaan idin sheegaynaa degmada in ay idin hayso ahmiyad fiican qalbi furan ku soo dhaweynayso waxaan idin sheegaynaa insha Allah degmadu hadii musharaxa waxaan u sheegaynaa hadii degmadu codkeeda hore lagu qaybsaday insha Allah abdullahi kariin maanta waxay ku hayso cod dhameystiran ayaan ku haynaa ku soo dhawaada baan leenahay degmada aad baan u soo dhaweynaa waftiga hogaamiye musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweynaha maalmo waarsan yihiin iyo gudoomiyaha Xirsi Cali Xaaji Xasan aad baan idin soo dhaweynaa soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada degmada waxa ay degmooyinkii awalba ururka markuu xisbigu la soo aasaastay ilaa kala soo saaray ururkii oo xisbi noqday shacabka reer Warraan halkan ugu soo dhaweeyay waqtigaana sugayay ee noo soo jeeday habeenimada aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad si kale laabaan idinku mahad celinaynaa Allah idin sharfo maadnaq dabadeed waa idinka raali gelinaynaa haddaanu goor dambe ku soo beeganay waa runtii jiif caaqilku sidaa u sheegay habeenkii horena waxaan ku soo beegnay waqti dambe waxa uu keentay duruufta wadada dheer la soo maray waxaanu ka soo wareegnay xadka marka wadada xadka dheer baanu maraynay kadibna deesidaan saaka u soo dhaqaaqnay waa soconaynay todobadii cisheed waan gelintu socotayna waxay noo ahayd socod aanu maalinba meelo hooyanaynay kadibna sidaas aanu caawa goor dambe halka ugu soo beeganay ku talagalkayga aanu islahayn maanta goor hore casar baa ku soo beegmaysaan wadada dheer iyo yani dadkii oo ku badnaa unan meel istaagaynayba duruuftu keentay raali ahaada marka labaad waxaan u soconay sidaa laga dhawaajiyay diiwaangelinta iyo wacyigelinteeda iyo dhiirigelinteeda iyo kormeerkeeda iyo indhaynteeda iyo inaan u kuurgalo sidaas aan u soconay haddii ay diiwaangelinta halkaas waxaan uga socotaan waa mahad ilaahay waxaan leenahay diiwaangelintu aad iyo aad bay muhiim u tahay diiwaangelintu waa meesha uu qofku codkiisa ku dhiiban karo ee muwaadinku fursadiisa uu kaga faa'iideysto inuu madaxdiisa kula xisaabtamo uu ku bedelo oo ku doonayana uu codeeyo ku diidayana uu ka codeeyo oo uu ku bedelo dhammaan shacbiga degmada Warraan waa idin salaamayaa waana idin mahadnaqaynaa sidaa jiif caaqilku sheegay gaad ma iska ahayd naga raali bahaanaysan haddii alla ka dhigo guud ahaan maanta olole umaanaan socon campaign umaanaan socon laakiin waxaan u soconnay inaanu idinkala qayb qaadanno wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha oo bilaabantay 28 bishan caawa 10 marka 10 maalmood marka maalin laga reebo inta kala socod baan ku jiray weli dalkiina maanan kala barin weli deegaano badan baa noo harsan oo tog dheer ah iyo sool iyo sanaagba waa noo harsan yihiin iyo saaxilba insha Allah waan jeclay laakiin inta ay socoto inaanu deegaanadaas oo dhan marro waxaan intaa u maraynaa una soo maray waxa weeyaan dadku haystiimaan geliyo marka waan idinku adkaynaynaa fariintaas in dhammaan shacbigu isdiiwaan geliyo si uu qofku ama muwaadinku u helo xuquuqdiisa inuu wax doorto ama isaga la doorto maanta dalku isbedel buu u baahan yahay isbedelkaasina wuxuu ku imanayaa doorashaduna waxay lagu kala helayaa waa cod marka codka saa codkiina u xaqiijisaan waa inay isdiiwaan gelisaan
aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa